waxaanu isku wareysanay in shuruucda waddanka la fuliyo ururaduna ay sidaa ku furan yihiin. Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland ayaa kulan magaalada Hargeysa kula qaatay xubno ka mid ah guddida urur siyaasadeedyada dalka. kulankan oo qasriga madaxtooyada ka qabsoomay xogtiisa gaar ahaaneedna ay aad u ilaalisay madaxtooyada Somaliland markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta maxalliga ah faahfaahinta kooban ka siiyay kulankan iyo waxaa lagaga wada hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka Ugbaade Cismaan Kujare wuxuuna yiri kulanka maanta madaxweynaha iyo ururada cusub dhex maray wuxuu ahaa kulan isxoguraysi xaaladda waddanka iyo magaranaysaa furista ururada iyo magaranaysaa shuruucda waddanka la isku hayo ee khilaaf ka taagan yahay arrimahaas aanu iska xoguraysanay si wanaagsanna waanu soo wareysanay qodobada waxaasaanu madaxweynaha ku nuliyay waxaasuu madaxweynuhu nagu yiri meesha ma taalo laakiin si waxa weeyaan madaxweynaha waxaanu ka wada hadalnay arrimaha hadda aad garanaysaana furista ururada iyo xaaladahan waddanka ka taagan baanu ka wada hadalnay si fiicanna waanu isugu afkarnay madaxweynaha ururaduna way furan yihiin ururadu sida sharcigu qabo xeerarku qabaan dalku madaxweynuhuna dee wuxuu u taagan yahay oo heegan u yahay qawaaniinta waddanka fulintooda iyo shuruucda waddanka waana arrimuhuna meel wanaagsan bay marayaan ururraduna way furan yihiin annaguna dee shaqadayada iyo howlaha iyaga caadiga ah baanu iska wadanaa madaxweynaha saasaan arrintaa wax laale wax ka jira ma jiraan madaxweynaha waxaanu isku wareysanay in shuruucda waddanka la fuliyo ururaduna ay sidaa ku furan yihiin